السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلام أصحابتي إخيارتي شرفت له مeel kastoo joogtiin waan kala maqneen muddo isuukaayo dambeysay ilaa Rabadaan maasha Allah waxba ma aanan soo gelin baan malaynayaa here and there maybe hal xabo iyo laba xabo waxaan soo geliyay Rabadaanka ka bacdi ismaanan arkinin xaalado jira awgeed ayaan soo geli waayay marka waa idinka raali gelinayaa hadda ayaan soo noqday maasha Allah I will be continuous waxaan waan soo gelin doonaa maxaa la yiraahdaa fiidiyool badan qisooyin ku saabsan xagga qisooyinka ayaan u bayray awal waxaan ka hadli jiray reactionka waxyaalaha sometimesna waan soo gali doonaa waan ku xadi doonaa reactionka iyo waxyaalihii markaas aan u arkay inay muhiim yihiin laakiin waxaan xoog saarayaa muhiimadeydu will be insha Allah maxaa la yiraahdaa qisooyinka hadda maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso xanuun badan murugadeeda maxaa la yiraahdaa saameyn ku leh maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed oo Mareykanka ku dhaqan meel kasta ay joogto minority-ga dadka laga badan yahay sida balaaga dadka madmadoob oo dhan anaguba ku jirno because qofka caadi wuxuu ku arkaa kuma kala saarayo hadaa Soomaali tahay hadaa African tahay hadaa ka timid anywhere Africa hadaa ka timid korkaaduba haduu madow yahay macnaha waxa tahay qof madow ayaa tahay waxay kugu wacayaan black Soomaali kuguma wacayaan waxaan garantay maaha marka qiso aad iyo aad u xanuun badan oo ka dhacday Columbus Ohio oo likewise ayaduna sidoo kale jabisay maxaa la yiraahdaa rekorka dilalka ku badanaya ummadda dadka laga badan yahay minority-ga ah sida booliska oo aad iyo aad macnaha u isticmaalaya force quwad macnaha aan caadi ahayn macnaha qofka madow markay arkaan xaqiiqdii way ka argagaxayaan qofka madow iyo qofka cadaanka sina isku si ulama dhaqmaan qofka cadaanka waxa arkaysaa way la dhaqmayaan si wanaagsan ayay ula dhaqmayaan waxa weeyaan waa warning bay siinayaan maxaa la yiraahdaa way la talinayaan way la hadlayaan laakiin qofka madowga markii ay arkaan xabadu waaba ka soo horeysa macnaha waxay isleeyihiin qofka madowga wuuba ku dili doonaa hadduu kugu soo kaco ama dhaawac buu ku geysanayaa marka sida xoolihii camal ayay isaga dilayaan meel kasta ayna ka jirtaa isna even America Europe oo dhan bay ka jirtaa qofka madowga waxa loola dhaqmaa si aan caadi ahayn annaguna waxaan iskula dhaqanaa si aan caadi ahayn ma aragtay waan iskala saarnaa haddana si xunna waan iskula dhaqanaa isma tixgelina ismana qadirina كورس قصدني waxay ka dhacday Columbus Ohio macnaha domestic violence dhibaatada ka jirta sometimes guryaha dhexdooda macnaha ama xaasaska nimanka iyo naagaha isqaba familiyaasha problema ayaa ka dhex dhaca sometimes dariska sometimes way booliska wacayaan hadii ay arkaan waxyaalo aan wanaagsaneyn sometimes xabado qof haysta haday arkaan ama wiilashan yararka xabadaha iska haysta haday arkaan sometimes booliska ugu wacayaan tanoo kale qisadani marka waxa weeyaan guriga ay ka dhacday waxa weeyaan waa la report gareeyay waa la report gareeyay actionta lagu sameeyay maxaa la yiraahdaa in dad xabado haysta ay gurigan joogaan maxaa la yiraahdaa xabado aan sharciga waafaqsanayn in ay haystaan oo macnaha xabadahaasoon u diiwaan galsanayn register gareysnayn marka boolisku wuxuu waday warqad ayay wadeen oo ninkani Rick ayaa la dhahaa booliskana halkaan uga jeedin Rick Anderson ayaa la dhahaa
wuxuu waday warqad ah ogolaansho guriga inuu ku geli karo, nimankaasna uu u geyn karo warqadahaas uuna xiri karo. soo waxaa garata maaha. And then gurigii ayuu yimid ninkani. Gurigii markuu yimid warqadihii ogolaanshihii guriga uu ku gelayay ayuu watay. Gurigii markuu yimid wuu gargaraacay. Gurigii markuu gargaraacay wiil ayaa ka furay. wiilkii oorey oo ka furay wuu xiray, maxaa la yiraahdaa, wuu jeebeeyey. mid kalaa la joogay asagana sidoo kaleeto wuu jeebeeyey, labadiiba wuu jeebeeyey. marka wuxuu fariisiyey meel buu fariisiyey. ninkani ay baa la socday. ninkani waxa weeyaan nin waqti dheer xaqiiqdii qisadiisa boolis soo ahaa. muddo dheer ayuu booliska ka tirsanaa, maybe more than 10 years ayuu ka tirsanaa booliska. waa nin khibrad leh, macnaha khibrad boolisnimada leh iyo habka dadka loola dhaqmayo waxaas waa nin leh. laakiin mar haddii aad madow tahay xaqiiqdii waa is different, you know. waxay ku arkaan si kaleeto ayay ku arkayaan. marka waxaa dhacday ninkani markuu labadii wiil xiray oo ayuu eygiisi wuxuu sameeyey, wuxuu kusii daayay guriga ayuu eygiisi kusii daayay. gurigii markuu eygii kusii daayay, eygu waa boolis asaguna, waa la train-gareeyaa, waa la tababaraa. Mareykanka eeyaashooda way tababaraan sidii booliska ayay u tababaraan. wax kasta way urinayaan, way fiirinayaan, because dog aad buu u caqli badan yahay. maxaa la yiraahdaa, ayuu aad iyo aad ayay u caqli badan yihiin, aad iyo aad ayay waxa maaragtay u dareemaan, aad iyo aad urintooda waxa weeyaan hadday waxaas mar uriyaan way raacayaan, way raadinayaan ilaa urkii meesha uu ka yimid ay soo helaan. marka eygu waa ay aad iyo aad u tababaran oo waxa weeyaan asaguna khibrad leh. jikadii ayuu ku warwareegay. jikada qol ayaa ku dhagan. qolkii buu ag istaagay eygii. qolka markuu ag istaagay wuxuu dareemay meeshan inuu qof ku jiro. marka eygu wuu qayliyey, wuu baagreeyey, wahwahdiisi ayuu bilaabay. wahwahdiisi markuu bilaabay eygii, ninkii booliska ahaa labadii nin oo u xirneed wuu kasoo tagay, because waa jeebeysan yihiin nimankani, waxba ma sameyn karaan, gurigeena ku jiraan. meeshii buu u yimid, albaabkii buu soo istaagay, albaabkii buu garaacay. albaabka markuu garaacay 8 to 10 minute ayuu albaabka garaacayay. qofka guriga qolka ku jiray wuu hurday. booliskii marka albaabkii buu soo furay. waxaasoo dhan waxaa kuu sheegaya booliska waxaa u xiran camero. boolisyada America waxaa loo xiray hadda camera ayaa u xiran dhexda ugu xiran suunkooda. camera ayaa ugu xiran oo cameradaasi waxay tusaysaa wax kasta oo booliska u sameynayo, meesha uu marayo, waxa markaas way qabanaysaa, wax walba way qabanaysaa camerada. bis marka ninkani wuxuu sameeyey gurigii ayaa 8 to 10 minute markuu garaacay laga furi waayay, wuu gala gurigii, wuu iska furay, wuu gala. markuu albaabkii galay, ninkan wiil yar oo waxa weeyaan sariir hurday, sariirtii buu kasoo kacay, wuu fariistay. marka ma go-i buu saan u qabanayay, macnaha uu huwanaa ya xabad iyo waxba ma haysan. waa nin hurdaysan oo hurdadii kasoo baraarugay. ninka saanta marka usoo fariistay oo ninkani wuxuu sameeyey xabadii waaba bum laba xabadood u qabadsiiyey. waxaa garata ma wiilka waxba ma haysto, xabad ma haysto, waa nin hurdo kasoo baraarugay. waxaa la yiraahdaa waa wiil yar oo ii sheeg asaguna maxaa la dhahaa 20 sano jir ah. 20 sano jir weeyaan wiilka yarka. waxaa la yiraahdaa asagana waxaa la Donfer Lewis ayaa la yiraahdaa wiilka yarka magaciisa. qisadani waxay dhacday talaadadii ayay dhacday, sabtidii weekend talaadadii ayay dhacday. marka wiilkii halkaas ayuu ku dhig baxay. booliska ninkan wuxuu sameeyey maxaa la yiraahdaa body camerada ugu xiran meesha ayaa maaragtay wax walba qabanaysa oo sheegaysa. markii camerada la release gareeyay ayaa waxaan oo dhan la arkay. marka waxaa dhacday dhakhtarkii wiilkii waa lala cararay, macnaha isaga xitaa booliskii waa naxay.
because wuxuu dilay qof innocent oo ma aragtay aan waxba haysanin ayuu dilay. marka wiilkii waa dhig baxay xaqiiqdii dhakhtarka loola orday. dhakhtarkii markii loola orday uusan na waxba haysanin oo ma aragtay la yaabay ummadii dhan isku soo baxday xabadihii markii la maqlay. waxaa dhacday marka kaamiradiisa ayaa la qabtay, kaamiradiisa ayaa gadaal loo fiiriyey. kaamiradii waxay tusaysaa everything, wix allaale iyo wixii meesha ka socday oo dhan ayay tusaysaa, sida eeygu meelaha u marmarayay oo wuxuu ururinahayay. maxaa la yiraahdaa nimanka markuu guriga soo galay sida u xiray wiilkani markuu hurdada kasoo kacay uusan waxbana haysanin. maxaa la yiraahdaa is like holding something oo maaragtay maradiisa miyaa maqan waxbuu qabtay wiilka yarka ilaa waa qof hurdo kasoo baraarugay oo hurdo kasoo kacay. marka loo saxa tarada markii boolisku ay transport ku hospitaalka lagu sameeyay in waxaa meeshii isbitaalkii waxaa lagu dhawaaqay macnaha wiilkii inuu dhintay markii press conference-kii la qabtay. marka booliska dhibaatadiisu way badan tahay. macnaha qofkii marka ninkani hadda booliskii waa laga fariisiyay, investigation ayaa ku socota, baaritaan ayaa ku socda sababta dhibkani u dhacay. dhibkani sababta asaga iyo eegiisa un kaliya weeyaan, soo waxa garata maaha. marka waxyaalaha Mareykanka ka dhaca aad iyo aad ayay u falxin yihiin. simply qaar ayaa waxay ku dhacayaan si fudud, hadda kanoo kale wuxuu ku dhacay si fudud, kii ugu horeeyana ma aha. saasoo kaleeto stadiyada ka mid ah saasoo kaleeto wiil ayaa ku dhintay asagoo sariirtiisa jiifa booliska ugu soo galay oo ay saasoo kaleeto u toogteen, mise waxa garata ma aha. marka press release-kii maaragtay la sameynayay of course naagta sameynaysay actually madoobe ahayd, hooye ahayd, inkastoo ay sympathize. waa qofka markaa hooyo tahay aad caruur leedahay, you feel the pain for the other person. hooyada kaleeta ay marayso ama aabaha uu marayo oo ilmihiisii la dilay, macno darrada lagu dilay, wax lagu dilayna ilaa hadda uusan garanaynin. marka maxaa la yiraahdaa kolley marka asagana haddii lagu helo kaamirada waa macnaha waa tanaa, laakiin ma soo saari karo. kaamiradu waxa weeyaan very graphic, wax walba ayay si kaliira u tusaysaa, slice ayay u tusaysaa maaragtay sidii wax u dhaceen. marka waa arrin aad iyo aad naxdinteeda u leh, murugadeeda u leh. marka I think haddaan Soomaali nahay meel kastoo joogno waxaa wanaagsan inaan iska taxadarno. tanoo kale taxadarba ma laha, qof sariirtiisii joogo oo lagu dilay oo macnaha loo dilayna aadan garanaynin, macnaha qofkii gurigaadii soo galay oo haddana xabad kugu dhiftay. marka kolley asagana de sharciga la saaraya. waxaa la yidhi asagana haddii lagu helo khaladkan hadduu geystay waxa weeyaan boolis ahaan laguma dhaafayo oo maaragtay sharciga la geenaya. booliskana waa ogtahay oo hadduu good behavior sameeyo wax wanaagsan hadduu sameeyo inta uu xabsiga ku jira manslaughter ayaa la dhahaa. waxyaalahooda macnaha wax aan uu ka sahayn ugu talagal lahayn laakiin accident ku dhacay ayay kasoo qaadaan markii maxkamadaha la saarahayo. so boolisku waxa weeyaan xuquuqda dhan waa leeyihiin. adigu shacab markaa tahay xaquuqdaadu way duusan tahay, xaquuq ma lihid. waxyaalaha maaragtay caruurtayada ama dadkayga ku dhacday in Minneapolis sida xun loo xirxirayo ama Columbus loogu dilayo. marka waa ogaan doonaa asagana officerkan meesha ku dambeeyo. marka intaasaan idinla wadaagaya, qisadaasaan idinla wadaagaya ka dhacday Ohio oo aad iyo aad u naxdinta badan. maxaa la yiraahdaa familigaas ay qabsatay ku waayeen wiilkoodii, labadoodii wiil oo kaleeto lagu xiray. ninkan uu asaguna banaanka joogo uusan weli xirnayn, laakiin baaritaan ayaa socda lagu leeyahay. baaritaankaas oo waxa ka imaan doonana aan la ogeyn. teeda kalena ay haystaan proof because kaamiradiisii ayaaba wax walba banaanka soo dhigaysa.
so waxaa garataa they don't care laakiin still ayagu waxay ku doodayaan baaritaan ayaan geenaynaa itakis maxkamadda booliska marka lasoo saarayana waqti dheer ayay qaadanaysaa sometimes ninka qaladka saas u geystay they release bal hadduu afrikaan yahay ama soomaali yahay ninkani waxa weeyaan oo kaleeto xabsiyu gelayaa sida wiilka soomaaliga 10 sano la yiri sooliq ayuu saasoo kaleeto sooliqaya hadduu soomaaliya laakiin waa nin cadaan ah maxkamadda dirabta waa iska sii daynaysaa saasaa cadaanku very privileged u yihiin marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa